السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا ورقسن دا وضيال دي لهانتين بقصوا دوادا برامج كديرة دا وبرنامج تضبط الله وأنا ألا وهذا الله ما بالشدة. برامج كتضبط كون في كثير من يحريها قحوتيك دداب. وأنا دا وضيال برامج كوسو قادم دونا نوشة محمد عبد برخدلي. هو اللي يراه وكونوا الحريها قحوتيك دداب قاران حرضة حجرده. وأنا برامج كانوا قدرنا إلى أن كوسو قادم نوشة محمد. وأنا نرشي سؤال وقد وأنت يذكر خلاه يكون الحريقة قحوتيك دداب waxyaabaha la xiriira noloshiisa iyo sida uu nool yahay ninkan dhalinyarada ahi barnaamijka ayaad uga bogan doontaa. محمد داق عبد برخدلي oo ku magac dheer Al-Cadaala waa nin dhalinyaro naafa ah oo ku nool xirada qaxootiga xagar dheer oo kamid ah xiriyaha Dadaab. Maxamed Deeq oo da'diisu tahay hadda 25 sano wuxuu xiriyaha Dadaab yimi isagoo jira hal sano sanadkii 1992 waxaana uu xiriyaha Dadaab la yimi aabihii iyo hooyadii oo ka soo qaxay magaalada Muqdisho. Hooyadii Allah u naxariistay waxay geeriyootay sanadkii 1996 isagoo markaas 3 jir ahaa. waxaana uu naafoobay markii uu 11 jirsaday sanadkii 2003 isagoo markaa dhiganayay galaaska 6 ee dugsiga dhexe wuxuuna la soo koray aabihii oo aad u caawin jiray maadaama uu yaraan ku naafoobay. aabihiina wuxuu geeriyooday Allah u naxariistay 15 bishii shanaad ee sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2018. maxamed wuxuu ku nool yahay qol yar oo akii ay wada deganayeen aabihii oo sida aan soo sheegnay geeriyooday sanadkii hore. waxaase guriga dhinac ka degan walaalkii oo ah nin dan yara oo leh xaas iyo cunug yar. ninkan dhalinyarada ah ee naafada ah wuxuu isku dayaa inuu noloshiisa maareeyo isaga ayaana inta badan qabsada shaqada guriga subaxdii markuu hurdada ka soo kaco sida dadka kale ee qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha Dadaab waxa uu aadaa goobta biyaha laga dhaansado si uu biyo u soo dhaansado isagoo isticmaalaya baaskiilkiisa oo ah nooca dadka naafada ah ku socdaan. waxaase dhibaato weyn ku haya bacaadka iyo buska badan ee xagar dheer caanka ku tahay oo sabab u noqda in baaskiilku si fiican u socon waayo. waxaa inta badan caawiya oo baaskiilka ku riixa dadka Maxamed yaqaana iyo dadka kale ee caadiga ah oo naxariis u muujiya markay arkaan isagoo baaskiilka u socon laayahay. markii uu tuubada tago waxa biyo dhaaminta ku caawiya oo caaga uu wato u dhaamiya dadka tuubada jooga. يا ربي نعم عجنا وطامية عجنا ترجع كانوا وطا أيانا كودا من هاي waxyaabaha uu Maxamed qabsado oo aanu cidna u daba fadhiisan waxa kamid ah dhaqitaanka dharkiisa iyo nadiifinta guriga uu degan yahay. cuntada Maxamed wuxuu la cunaa qoyska walaalkii haddii aan markaa cunto diyaar ahayn wuxuu wareegaa dadka ay deriska yihiin si uu wax ula cuno. Maxamed halka uu degan yahay waa ka durugsan tahay
suuqa xerada uu ku nool yahay ee Xagardheer mar walba oo suuqa soo aadayo iyo mar walba uu sii laabanayoba wuxuu u baahan yahay qof caawiya oo baaskiilka ku riixa mararka qaarna ma helo qof caawiya maadaama qof walba oo jidka maraya uu leeyahay dan gaar ah oo uu tiigsanayo waxaana dhacda mararka qaar inuu in muddo taagnaado jidka isaga oo sugayo qof caawiya oo baaskiilka hore ugu sii riixa qofkii markaa caawiya oo baaskiilka ku riixaana inta badan ma gaarsiiyo halkii uu rabay sababtuna waa meesha uu ka yimaado oo aad u fog iyo cadceedda oo aad u kulul oo qof kalihii aanu awoodin inuu keligii sii riixo baaskiilka guriga ilaa magaalada waxyaabaha maxamed qaatiyaanka ka taagan yahay waxaa ka mid a saxmadda badan ee ka jirta suuqa Xagardheer baabuurta tirada badan ee ka shaqaysa suuqa ayuu khatar ugu jiraa inay jiidhaan isaga iyo baaskiilkiisa waxaadna mararka qaar magaalada ku dhex arkaysaa maxamed oo baaskiilkii baabuur kaga dhex xaniban yahay oo qof walba oo weji kartona gacanta u haadinaya si u caawiyo oo u dhaafiyo baabuurta iyo saxmadda badan ee suuqa ka jirta maxamed waa nin furfuran dad la socod leh oo dabeecad wanaagsan taa ayaana ka caawisay in dad badan ay caawiyaan oo u soo hogtaan markii ay ku arkaan isaga oo magaalada maraya maxamed oo sidaan hore u sheegnay yaraan ku naafoobay naafanimadiisu kama hor istaagin inuu waxbarashadiisa sii wato wuxuuna dhammaystay waxbarashadiisa dugsiga sare sanadkii 2009 6 sano kadib markii uu naafoobay laakiin waxbarashadiisu uma horseedin inuu helo shaqo rasmi ah sababo la xiriira naafanimadiisa noloshiisa 6 bilood oo kaliya ayuu noqday shaqaale mushaar qaatay isagoo la shaqaynayay hay'ad samafal oo lagu magacaabo Handicap International oo qaabilsaneyd daryeelka dadka naafada ah oo uu ka ahaa afnaqe ama turjubaan alcadaala waxa kale oo uu bartay xirfadda saxaafadda 2015 wuxuu in muddo la shaqaynayay idaacad maxalli ah laakiin kama aanu qaadan jirin xaruntii uu ka shaqaynayay wax mushahar ah haba yaraatee barnaamijyadiisa wuxuu diiradda ku saari jiray caqabadaha dhinaca nolosha ka haysta dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab maxamed deeq oo la hadlayay barnaamijka diiradda ee Jubaland TV ayaa ka sheekeynaya ugu horeyntii waxa sababay inuu naafoobo waxaan ku naafoobay xerada qaxootiga ee Dhagaxley naafanimadayda aniga oo ka imaaday iskuul oo homework iyo soo diray macalinka ayaa waxaan imaaday xaafadda Amandoore 8 saacna macalinka wuxuu iga rabay in aan homework aan uga shaqeeyo aan u geeyo nasiib daro inta aan homework aan ka shaqeysanayo gaar xaafadda joogtay ayaa waxay ugu wareerisay in aan emergency ugu imaado marka ayada aniga waxaan ahay busy aad ayaan ugu mashquulsanaa homeworkayga kasoo gudub kadib waxaa bilaabatay marka iga deynwaday dhagahadal fara badan in aan ugu jawaabo kuma imaan karo idda markii ugu dambeyn adig waxa aan go'aansaday in aan buugayga iyo qalinkayga iska dhigo kadib ayada aan aado si aan ugu soo qabto waxyaabaha ay doonayso mar allaala markii aan u tagay ayay waxay igu bilowday in ay wax aan meel laba ka jirin weel ah ay tiraahdo ii soo qabo wixii marka aan laacay oo ku foorarsaday ayaa waxay qabatay giirka markaas ayada aan giirka marka qabatay isla markii waan ka baxsan waayay marka ayada muddo waxay jirtay 30 sano anigana waxaan jiray ilmo yar oo marka waxaan ahaa 9 ilaa 10 inta u dhaxayso marka ka bacdi waxay bilowday in ay garaacdo waxayna weyday yada ama usha agteeda si ay igu garaacdo aniga nasiib daro waxay gacanta ku dhigtay ama ay gacanta ku heshay bir agteeda ah gabadhana marka waxay ahayd gabadh aad iyo aad u dabeecad xun isla markii waxay bilowday in ay birtii ama wixii ay gacanta ku heshay yadka ah ugu bilowday in ay ugu garaacdo marka ay bilowday in ay ugu garaacdo ayaa liadii muddo dheer bay ila dhaceysay dhowr xabbo marka ugu dhufatay aniga waa la iga roojiyay markii la iga roojiyay
كومانتي وحن قالي إن أنا ما أرتي ضعو إن أنا ما أرتي أنا وحاسمه إن نيتي كتكتو كد وحير كدب تادت وحن بالله إن منطقة أفهم من جرايو مكي فهمتك عن بالله dabadeed waxaa la ilo orday iskuulka waxaa la ilo orday isbitaalka dhakhtarku wuxuu sheegay inay malaria hayso adii muddo dheer la daba orday kadib waxaa la go'aansaday in la ii qaado Nairobi Hospital Kenyatta waa lagu guulaystay waxaa la yiri ninkan waxaa saa u galayo ma aha malaria iyo xanuun kalaba ninkan waa nabar ku dhacay nabarkaas ayaa wuxuu u keenay infectiga markuu u keenay ayaa gabadha marka gabar aan wax xusunahay bay ahayd haddii marka la sheegi lahaa oo meesha lagu sheegi lahaa waxaa looga baqay meesha in ayada lagu soo qabto ama lagu dhibaateeyo waa la qariyay meel kale madax loo geliyay saadaraadad waxaa haddana bilaabatay in aan aniga isla markiiba meesha la igu daaweeyo operation aan galo waqti dheer oo sanad ku dhowaad daawooyin aan la isiiyo waxay kadib tooda ay ii sheegaan dhaqaatiirtii in ay neerfayga aysan wax ka qaban karin. maxamed oo lixaad caafimaad iyo badqab ku soo gaadhay 11 sano waxa uu ka warramayaa markii ay u bilaabatay nolosha naafanimadu sida ay noloshiisu isu bedeshay iyo sida uu noqday dareenkiisu markii uu tahli waayay inuu qabsado waxyaabo badan oo u fududaa markii hore. dareenkayga kulley waxyaabo aad u badan baa markii ugu soo wajahmay markii aan lixaadkayga qabay aan ordayay sidaan ahaa iyo sida aan noqday markaan isbarbar dhigon isku miisaamay haddee waa dareemi kartaa qofka aan lixaadkiisa qabin oo awood aan lahayn laakiin marmar qaarkood ayaa xasuus igelayso oo markaa dhibaatooyinka markaan lugaha soo qabay awoodda aan lahaa marka aan xasuusto arrimaha noocaas waxaan aniga aan go'aansanahay in aan ka tanaasulo aysan tan ka imaatay ilaahay mid uu igu talagalay ay tahay aniga oo taa xooga saarayo ayaan marka iskuulkayga inta badan dhiga hadal bini'aadanka deyn mahayaan waa waqti dheer waxbarashadayda waxaan sii wato naafanimadii dhibaato inaan wax soo qabsan waayo inaan meeshaan raba aadi kari waayo in aan ma aragtay awood u yeelan karo xataa banoombi iska badaa baaskiil in aan ku socdo ayaa noqotay marka ayada. intii uu la daaladhacayay maxamed deeq nolosha naafanimada oo ay u dheeray duruufaha qaxootinimo waxyaabaha uu sheegay inaanu ilaawi karin oo aanay marnaba xasuustiisa ka go'i karin waxaa ka mid ah tacadiyo uu xusay inuu kala kulmay dadka uu ku dhex nool yahay. horta waxyaabaha ugu weyn oo isoo maray intaan naafada ahaa dhibaatooyin iga imaaday bulshada way jiraan aniga oo raba inaan meel gaaro ama aan wax soo qabsado waxay noqotay in gaariga la uuro yaxo in la igu saacideeyo dadka qaar way diidayaan qaar way yeelayaan qaar kolbasi qaar maaragtay aflagaadeeyo xataa maaragtay qaar baa isku dayayo in ay maaragtay ugu caayaan naafnimadayda. sanadkii hore sida aan sheegnay waxa geeriyooday maxamed aabihi oo ahaa qofka kaliya ee maxamed garabka u ahaa waxaana isaga oo hore u waayay hooyadii ay geerida aabihii mugdi sii gelisay noloshiisa. marka ayadaana waa xilli waxayd xilli ana aad iyo aad murugo ilahayd because hooyadii hore baan u sii waayay aniga oo hooyada hor u sii waayay ayaa maaragtay aabbahan igu xijiyay adoo waa min Allah taala wax alla
حقيس كإمادي كل نفس ذائقة الموت مركا آباهي كلي الله الرحمة انتو نولا ان ادي وحيقتا كلان جري قرب قبضك وحيابها هذا الله وانا دو كله maaragtay wax sheego oo kale dhiirigelinta oo kale inaan qoosnin oo maaragtay aan sii wato maadaama aan naafa ahay nafsadayda aanan yasin oo maaragtay adi qof waalidka ah wuxuu ku siin dhiirigelin waana fiican waxyaabaha markii adi aan dib u sii fikiro aabahay كل وحقبت وين بإلها إن مركي وقعنتي سوى كويلا حتى وعداي أبو مقالة إسكاقدعي وحن لكن وقت حاضر كان لتشوه ما هيو هدين ما سوء أباي كبحي أنا وحياب بدن بي وسو جاي أو حنون سيدا ما أردت وحشيق أو كلا هدي إنه قطو ديركلمة حاجة مسكحيا سيكولوجيكال إن وحكى له يوسف وجامي جرب خبطكي قفك والدك دواي مستيان ومعرتي وهليلا يا حنون بدن دباتين فرب بدن بقفك كوسو وجامي كنا لكل ما يعدي لكن هذا اللي تشوفه وقت حاضر كمان أن أو فرح سنة هذه معركتي إذنك عادي قرب تاجنتين أو هذا معركتي عدون إنسان إن عاد إجوار السلطان دباتون كي عاد بان إذنك مع النقل maxamed oo sida aan soo sheegnay dhamaystay waxbarashadiisa dugsiga sare wax shaqo ahna ka waayay hay'adaha samafalka iyo meelaha kale ee loo shaqeeyo oo gaarka loo leeyahayba waxa uu wali raadinayaa shaqo si uu noloshiisa u maareeyo wuxuuna ka hadlayaa sababta uu muddada dheer shaqo raadiska u yahay iyo sababta uu shaqo u waayay alxamdulillah horta meesha laga neefoobo waa maskaxda lixaadka ma aha qofka bini aadanka hadii uu maskaxdiisa uu si ka noqdo waa qof aan ma aragtay joogin xoog walba qurux walba wax kasta uu leeyahay waa horta wanaaga waa maskaxda naafanimada maskaxda ka imaata alxamdulillah shukri muddo dheer ayaa aqoontayda ugu soo jiray inaan heema ka gaaro iskuul baan soo dhameeyay saxaafadii baan soo dhameeyay kombiyuutarka baan dhameeyay wixii aqoonta galaan bartay alxamdulillah ilaahay baa mahadda iskale shaqooyinka horta waxaan waayay dadka naafada ee xiriyaha qaxootiga ku nool horta aad loo soo dhaweeyo aad looma dhiirigeliyo hay'adaha markii loo fiiriyo boqolkiiba 2 ama 1 oo naafa ah baa hay'ad u shaqeeya boqolkiiba 99 waa dadka adimooda ama 1 ama 2 ka shaqeeya hay'ad lama rabo saadaraadad ayaan ku waayay shaqooyin shan hay'adood ayaan imtixaan u galay oo aan isku dayay inaan ka shaqeeyo shantii hay'adood markaan ku guuleystay Soomaalidan gaalada la shaqeysa ee madaxda ah ayaa ma aragtay isku dayay inay daba galaan ay dhahan ninkan waa curiyaan arrimaha ma qaban karo soo idin ku shaqeyn hadda waxaan waa gaal hadii qofka walaalka ah oo asiga uu kugu diro oo asiga uu idin dhaxay labadiin mastiin way man gaalkan waa iska wixii la dhaho qaadanaya aniga laakiin alxamdulillah wax kulli shanta boos aan ku sheegay hadda shanta waan ku guuleystay waan iga soo qoray inta badan hay'adda kulli marka aan su'aalo daba galay ama ay la daba galeen madaxda dadka naafada ee madaxdooda ee daba galeen waxay hay'adda ku nuuxsan ma ay ku hadlay ninkan in uu yahay nin naafay oo baaskiil ku soo meesha wax laga soo qaadana waa meel fog waana bacaad dhulka haddii ay dhibaatooyinka ay jiraan
xafiisna ayagii ay maaragtay joogaan madaxda ahaa ee gaalada ahaa ayse ii ogolaan in ay fadhiisiyaan waxay rabaan qof bannaanka oo soo shaqeeyo anna haddii marka ay dhahaan meelaha ma gaari karo oo kama soo shaqayn karo oo meelaha kama soo qabsan karo ana hal su'aal baan weydiiyey waxaan dhahay wixiina idinka ayaga oo qoraal ah oo socdo oo maaragtay idin diyaarsan soo baahnidin haa anaa idin keenayo saan ku keenaba way iga yeeli waayeen marka waxay noqotay caqabadii ugu weyn ana kulley waxay ila noqotay in igu midabta kooraya baaskiilka aan ku socdo oon meel aan ku tegi karin lugahayaan aana qabin taasaa keentay ma aragtay in caqabad ay igu noqoto sidaan hore u soo xusnay maxamed deeq cabdi barkhadle ninkan dhalinyarada ah ee naafada ahi wuxuu bartay xirfadda saxaafadda oo uu ka qalin jebiyey maxad laga barto saxaafadda oo ku yaala xeryaha dhadhaab isagoo sidoo kalena tababaro ka helay bahda saxaafadda ee xeryaha dhadhaab wuxuuna maxamed u bareeray xirfaddan oo ah mid caqabadaheeda wadata oo ay adag tahay in qof walba uu ka gudbo uuna guto shaqada adag ee laga doonayo maalin walba qofka saxafiga ah haddaba maxamed maxaa ku xambaaray inuu xirfaddan barto una bareero inuu ku shaqeeyo saxaafidnimada horta waa dhib badan tahay aad iyo aad bayn u dhib badan tahay reedi waa ina ahaato mar kasto marka aniga horta waxaan ku doortay maadaama aan ahay nin naafay ah ama curiyaan bulshada hadba say u taqaano waxaan go'aansaday dadkan naafada ah idaacad walba oon dhagaysto waxaan ka waayay hal qof shakhsi ah oo ka socdo dadka naafada ah ama matalahayo waana midda aniga intaan meel u fadhiistay aan u fikiray aan is-iri waryaan maanta wax naafa ah oo idaacad ka shaqaynaya ma jiraan waxaad isku daydaa ood xoogga saartaa maskaxda ilaahay waa ku siiyey aqoonta waa qabtaa saxafinimo inaad barato alxamdulilah waan tegayay adiga saxafinimada sanad iyo 5 bilood ayaan dhiganay kadib saxafinimada waxa aan go'aansaday dadka naafada ama curyaamiinta in aan u soo dhiciyo xuquuqdooda waayo haddii ay qofka naafada ah soo horta aan dad naafo una xero aan u joogno hal shakhsi oo naga hadlo dhibaatooyinka naga ka hadlo ama matalaad soobiyo horta ma jiraan waana caqabada noogu weyn anaana u shafgaraacday in aan sameeyo arrintaas waana ku guulaystay muddo dheer ayaan u gudagalay in arrimaha iyo howlaha aan sameeyo si ma aragtay adi aan u soo baxo dadka naafada loogu soo halqabsado wariyo naafa ah ama curyaan ah ayaa jiro oo dhibaatooyinkooda og because adigu waad ogaan kartaa dhibka adig ku haysto qofka walaalka oo curyaanka ah adigu waad ogtahay xanuunkaada asiguna aad ogtahay isku xanuun baa tihiin haddii marka qofka dimaaq qabo maanta adigu ogala haddii lagaa waraysto dadka naafada aqoon dheeraad ma lihid xanuunka hayo adig kuma hayo marka ana waan ogaaday waan bartay in dheer iyo teer dheer baan u lahaa waan dabagalay muddaan sheekaysana waan ku dhex jiray waa ku shaqeeyey maxamed xirfadda saxaafadda muddo 3 sano oo xiriira ayuu ka howlgelayay idaacad maxalli ah oo ku taalla xeryaha dhadhaab laakiin nasiib darro 3 sano ma qaadan wax mushahara haba yaraatee maxamed ayaa barnaamijka diiradda uga warramay sida ay ku dhacday in isaga oo nin naafa uu muddo 3 sano oo lacag la'aan ku shaqeeyo isaga oo gudashada shaqadaana ka marayay dhibaato aad u badan sababta ay ku dhacday waxaa weeye midda horta 10 saac ama 12 saac salaad
salaada subax markii laga baxo ayaan shaqada u soo xaadiraa markaan u soo kicitamo oo aan shaqada aan imaado haddii shaqadayda maadaama hal maalin oo qalad aan ka galayn ma laha hal maalin oo dhibaato idaacaddeed aan u geystana ma jiro hal maalin oon caqabad keensadana ma laha waxaa aan u beer nugul aan u calool adkaystay aan u dhaxda xidhay in aan dadka naafada mar kasta oo maadaama aan wariye u ahay dadka naafada inaan ka soo qaado waraysi oona marnaba xirfadayda haddii ninka aan u shaqaynayo management-iga agaasimaha asaga hadduu garan waayo in aan ugu shaqeeyo inaan ku shaqaynaa volunteer dhibka iyo heesta wuu arkaa gaari baan ku socdaa basketball baan ku socdaa waxay aadeen meelo dheer baan warbixinta oo keenay akhbaaraadka asiga marka ayada uu arkaa indho dheer buu leeyahay marar badan waan kala dooday waan kala hadlay waxaan dhahay agaasimay dhibkan baa jiro waxaan kaa baryay oon kaa toogay inaad ii bilowdo lacag ama mishaar maadaama aanahay qof naafa ah muddo dheerna kuu shaqaynayo wuxuu markasta igu jawaabayay inuu bishan soo socota ama wiigna soo socdo ama sanadkan bilowgiisa uu ii bilaabay anigana marka waxaan ahaa dadka dulqaadka badan samarka badan because haddii maaragtay dunta ay u qasbi inaan iska dulqaato samar wanaag ayaa soo maaragta aan sameeyo inaan iska imaan qabo alxamdulilah laakiin saa ay tahay muddo dheer ayaan ugu shaqaynaa volunteernimo 6 bilood baa loogu talagala horta volunteernimo 6daa bil markay dhammaato gruubka ila imaada ama idaacadda uu keena agaasimaha waxay weydiisan jireen inuu mishaar u bilaabo wuxuu u sheegi jiray bajad la'aan inay jirto kadib hal bil hadday ku darsadaan 6daa ma aynay dulqaadan jirin waa isaga tegi jirin inta aan joogay 7 gruub oo markaa volunteernimo intay ku soo shaqo tagaan 6 bil markaa joogaan ooga tagayaan baan aniga igu imaado wan iga tagayay laakiin aniga danta igu reebtay inaan isaga dulqaato sida aan ku soo xusnay qaybaha hore ee barnaamijka caqabadaha ugu weyn haysta ninkan dhalinyarada waxa ugu weyn dhibaatada dhinaca socdaalka iyo gaadiidka waxaana maxamed weydiiyey sida ay suurtagal u tahay in dadku caawinayeen muddada intaa leeg maadaama aanay fududayn in la riixo baaskiilkiisa oo aniga oo hal maalin ku soo riixay gurigiisa ilaa magaalada aan ka maray daal iyo dhibaato badan waxaana uu maxamed ka sheekaynayaa culayska maalinlaha ah ee ka haysta baryada dadka uu ka baryayo inay ku riixaan baaskiilka iyo sida aanu mararka qaar u helin dad caawiya horta keligaa ma aho bahalkan gaarigan horta waxaan isticmaalayaa muddo 13 sano baan isticmaalaya intii hore waan yaraa ma qaad qaadan jirin muddo 13 sano bahalka aan isticmaalayo waxaad ka warantaa bal aniga qofkii ama bin aadanka aan ku dhaxnool maalin walba igu reexay way ka sii dhib badan tahay markay si loo eego okay waxa weey aniga horta bin aadan baa ilaah baan samaysta adduunka ilaah baan keensaday sida aan ahayna ilaah ay gartay alxamdulillah saa ay tahay ani ma qoonsanin waxaan aniga sameynayay in ma aragtay gaarigayga aroortii salaad subax markaan tukado anoo quraacanin baan wadada la soo istaagay intaa waxaan ka soo fikirayaa amii dad shaqo u socdo ama magaalada u kala hayo ama la hijra waxaanan ka sii fikiri shaqadeeda saan ugu degdegi lahaa aan u noqon lazy
nasiib wanaag mar waxaan helayaa qof meelo dhadhow isii geeyo qof kale iga sii wado isiiga sida kaamerada ka muuqato sida muuqaalka ka muuqato sida ma aragta lagu arki karo bini hal qof oo intuu ii wada meeshaan rab igeena ma jiro qofaa halkan iga wadi wuxuu igeenayaa meesha oo kale qofaa iga sii wadi meesha oo kale qofaa iga sii wada meesha oo kale way jiraan in badan aan la koobi karin oo weliba ilin labadaas iga keenta maxay igu kosgaray wadadan fadhiisan qofka waxaan rabaa inuu riixo waa inuu gacanhaadin kaalay igu riix gaari qofka ugu dhawaan daasana shaqaan oo ordi wuu kaa tegi qof kale sugi wuxuu ku dhahaa isbitaal u socda waa xanuunsan faraanka qaad qof kale ma sugi wuxuu ku leeyahay blog ma u socda qof kale ma sugi wuxuu ku leeyahay arimanka iyoonki imaado meel kale waxaan u ordaa dugsi ama iskuul labada indhood ilin ina iga imaato mooyeen sikal bin aadamki marka aan ugu imaa adiga san u joogo ay wax laga yaabaa at least hal saac ku dhawaad baan wada taagnaa anigu oo fikiray oo ciil iyo caraba beelay yaan horta waxaa laga yaabaa qof aan isnaqaano inaan helo markaas waxaan walaalow dhib baa kugu ahaatee bal meesha igee meesha dhow siigi qofkii baa sidii ugu siigeen meesha aan rabay ma aha waxay iga sii dhib badnayd martaas marka aan shaqooyinka aadayo yaa iga sii daray xerada Xagardheer waxaa ka jirta saxmad aad u badan baabuurta ka dhex shaqeysa xerada ayaa ka mid ah waxyaabaha dhibaatada uu kala kulmay Maxamed waa kan isaga oo ka sheekeynaya dhibaatada uu ku qabo saxmadda suuqa iyo shilal uu galay oo qaarkood halis galiyay naftiisa aniga horta markaan kaaga soo bilaabo suuqa markii aan soo aaday dhibaato in ay leedahay waad aragtay kaamerooyinka lagu arkayaa mid aan ka been sheegana ma aha dhibaato aad u baahsan horta gaarigan iyo tagaasida magaalada ku sabata sawaxanka ay ugu hayaan shan shil ayaa horta la kulmay shilka koobaad wuxuu ahaa 5 gaari ayaa horta isku kay qabta maalin dhinacna ma uga bixi kari dhinacna ma uga bixi kari anigina baad baan dhafadhiya meel aan uga baxana ma hayo xagga waxay iga maaday matatu xagga waxay iga maaday gaari kale xagga waxay iga maaday taxi xagga waxay iga maaday loori xagga kala wadada kale waxa ka soo baxay askari gaariga booliska gaariga booliska wuu istaagay wuu fiiriyeen waxa isdhan wariya ninkan dhaxdin ku jiro oo ku wada dhiileedihiin mid soo dag oo ka qaado ma la waay inta hangal yeerinaya kas ay way arkaan inaan baada dhax fadhiyo arkaan laakiin jaxan jaxmala waxa dhiid nin kasta aan ku yeerin anna wallahi iga tooma dhaqaaqa hal shakhsi oo intuu isoo dago baadki iga bixinaan ma aragtay kuma hayo booliskii ayaa wuxuu yiri ninkan maxaa ka damacsan ngaad leedihiin maxaa nin dhaqaaqa rame ciidu dhaxfadhiya kuwa lagu amrooli yiri qaad inta kale waxa la go'aansaday station ilaa taxaab saale aliga anaga waxaan go'aansaday ana booliska aan la hadloon walaalayaal iska dhaafa iska daaya waxaan dhaawaa Soomaali qalad bay galeen laakiin iska dhaafa
faraha kala baxa iska daay waayahay dheh sidii baa adiga shilkii labaad wuxuu ahaa maalin anoo luuq kasaa uga soo baxay luuqii ayaa gaari taxi ah waa asagan luuqa rab inuu galo yaa luuqa aan ka soo baxay meel bacad baan galay bacadkaan gala ma ahee asigan jiiro ku soo dhuftay jiirooda uu ku soo dhuftay iyo anigii oo cas qabana gaariga aan wato hortiisa taayirka iyo taxiga waa isku dhacay haa marka asaga markii su'aal la weydiiyey wuxuu yiri bariga ay faqada waayo haddii markaas ama aan lagu lahaan lahaa ama aan ahaan lahaa qof wata ama baaskiil wata ma taagnaado danta ugu rabta meesha maadaama aan haysanin qof iskood ii ah oo i wadwadhayo caqabadaha tirada badan ee maxamed deeq cabdi barkhade al cadaala oo ah ninkan dhallinyarada ah ee naafada ah ka haysta dhinaca nolosha ayaa waxa uu sheegay inay tahay ta ugu weyn oo uu ku soo ururin lahaa dhibkiisa gaadiid la'aanta waxaana uu codsaday in laga caawiyo sidii uu ku heli lahaa gaadiid dhaamaka uu hadda isticmaalo oo ah baaskiilka nooca ay ku socdaan dadka naafada ah oo ku qaba dhibaato aad u badan aniga horta meel aan seexdan waan haystaa cuntana haddii ina laa yursiqu man yashaa biqayri xisaab ilaahay israaqada lacag la'aan buu xisaab la'aan buu dhiibaa alxamdulilah aniga hadda waxa iigu baahi weyn oo iigu daran maadaama aan ahay nin naafi ah nin wariye ah nin haddana bulshadii soomaaliyeed wiilkoodii ah markii laga soo tago waxaas waxaan aad iyo aad uga codsan dadka wariyaasha ah dunida daafaheeda daacalaheeda gudaha meel kasto ay joogaan muuqaalka way arkayaan waxaana aad ugu mahadnaqay wariyaha maanta intuu ii imaaday muuqaal iga qaada bulshada tusaya ama wariyaasha tusanaya baan horta aad ugu mahadnaqay markii xigto inta maqal iyo muuqaalkayga dhegaysatay ama daawatay oo wariye ah si naxariis leh oo codsi ah waxaan uga codsan in ay ii gadaan oo keliya barmooto aan aniga xirfadayda iyo shaqooyinkayga aan ku qabsado maxamed deeq waa nin niyad wanaagsan waxaana uu higsanayaa inuu meel dheer iyo guulo wax ku oola ka gaadho mustaqbalkiisa waxaan daawadayaal intaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii diiradda ee toddobaadkan barnaamijka wuxuu toddobaadkan idinkaga imanayay xilyaha qaxootiga dhadhaab waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamac axmed deera ah inta aan barnaamijkan kaxiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaanaha